wada meyd ah oo la isticmaalay oo buumihii meel yaallo ayadii diriceeda iyo googorodeedana halkaa u saaran yihiin jeegadana uu ka bileeyey dhuunta uu ka bileeyey meel walba torreey uga yaallaan meyd bayna ahayd miyaysan musiibo iyo murugo ahayn dhacdooyinka noocan oo kale ah oo soo badanaya weliba waa gabar 17 jir ah oo kufsi iyo gowrac la isugu daray dhacdooyinka qaar ee dunida ka dhaca waa kuwa laga argagaxo maba ugu sii jirto sheekada aan kula wadaagi doono nin gabar 3 bilood uur lahayd intuu kufsaday kadibna gowracay waa fal argagax leh oo qof walba oo damiir leh uu ka argagaxayo weliba sidee wax u dhaceen maxaa ka jira in gacanta lagu dhigay ninkii falkaas geystay gabadha dhibka loo geystay halkee ku sugan tahay waxaa dhacdadani kula wadaagaya anigoo Ismaaciil Buulle laakiin inta aan muuqaalka gudaha u galin waxaan ka codsanayaa inaad like garayso siina share garayso muuqaalkani si uu u gaaro saaxiibo badan oo sidoo oo kale wanaagsan tani waa dhacdo argagax leh miyaad ku fikiraysaa inuu jiro nin sidan u naxariis daran oo aysan xitaa wax yar oo damqasho aysan ku jirin jirkiisa kaas oo ku dhaqaaqay falkan wuxuushnimada in qof islaam ah uu ku dhiirado in gabar xaamil ah oo waliba 3 bil uur lahayd intuu kufsado haddana dil ugu sii daro laakiin way dhacday arintani siday wax u dhaceen iyo waxa dhabta ay ka jira arintani waxa inala wadaagaya Cabdullaahi Axmed Baalle oo ay ilmaadeer yihiin gabadha dhibkaas loo geystay waxaan ahay Cabdullaahi Aadan Baalle marxuumka dhintay Ubax Maxamed Yaxye walaashay weeye in adeertay aabahaygii labaad baa dhalay shalay galab baa guri xaafadeed waxaa looga diray xaabo xalay waa la kala dibooday shil baa la kulmay dadkii ehelada ahaa iyo hooyadeed iyo xaafadihii way waayeen ehelada ka sarraysaa kama aysan warqabin saakay baa la isku soo baxay gabadhii waa la raad qaaday xaabadii ay wadatay iyo maydkeedii baa isku meel loogu tegey way qaawanayd maradii u hoosaysay maryaha way ka maqnayd kuwa kalena laabtay u saarnaayeen way biraysnayd hooyadeed uur bay ku sheegtay 3 bilood ah oo ay lahayd gabadhaasu Ubax Maxamed waxay ahayd hooyo xaamil ah 3 bilood uur leh mustaqbalna kale nolosha waa hooyo ku haminaysay inay mar un aragto curadkeedii ama curadeedii ugu horeysay laakiin maanta aysan ku fikiraynin in dib noocaas ah oo kale uu ku dhici karo falkan argagax leh ee baraha bulshada aad looga hadalhayo ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Caabudwaaq Ubax ayaa aaday markii dhibka uu ku dhacayay xaawo oo ay reerkooda u doontay laakiin maalmo la weysanaa isaacada la weysanaa waxaa la soo helay iyada iyo qoorteeda oo laba meel kale yaala oo loo dilay weliba si wuxuushnimo leh inna ilaahi raajicuun aad baan uga xumahay falkaas tacadiga oo ka dhacay halkan aad iyo aad baan uga tacsiyeynayaa waxaan ka codsanayaa anigu warkii waxaan ku soo gunaanadayaa wixii hore dhan waa laga hadlay waxaan ka codsanayaa laamaha amniga inay ku soo qabtaan qofka gacan ku dhiiglaha oo falkaas si degdeg ah looga soo jawaabo waxaan codsanayaa sidii Caysha Eliyaas oo kaleeto gabadhaas falkeeda in looga soo aysan ahayn in dhammaanteena aan ka dhiidhino una istaagno dhibku ku dhacay Ubax lana qaybsano musiibada iyo murugada qoyskaas qabsatay waa dareen qof walba oo damqasho leh uu ka damqanayo weliba wararka ugu dambeeyay ee ka imaanaya ayaa sheegaya halkaasi in gacanta lagu soo dhigay ninkii geystay falkaasi baaritaanna ay ku hayaan hay'adaha ammaanka marxuumad Ubax Maxamed Yaxye Allah u naxariistay ayaa lagu aasay magaalada Caabudwaaq inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun